kulan ku aadan arrimaha dowladaha hoose isla markaana wadatashi ay ka qayb galayaan wasaaradaha Hirshabeelle iyo bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar sida uu ku soo hormeeyay wariyeen Cabdiraxmaan Wadani. kuwani waa qaar ka mid ah bulshada ku nool Jowhar oo laga soo dhaxlay afarta xaafadood ee magaalada waxay u fadhiyaan wadatashiga dowladaha hoose iyo bulshada Hirshabeelle oo ay soo agaasintay wasaaradda howlaha guud iyo guriyanta ee maamulka Hirshabeelle gudoomiyaha ururada bulshada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo duqa magaalada Jowhar Saalax Muudi Cali ayaa ugu horeyntii dardaaran u jeediyay ka soo qaybgalayaasha kulankani waxa laga wada hadlayo maantay waxaad nood gareysaan ayaad bari faa'iidi doontaan hadii la yiraahdo waxaana la rabaa baahida ka jirta halkan inaad si dhab ah uga sheekaysaan hoose waxa ka dhaxay xiriir aad u qoto dheer oo xagga dhulka ah design-ka iyo wax walba howlaha guud waxaan uga fadhinaa magaaladeedana tan ah aad ay u burbursan tahay wadooyinkeedu waa ever oo wax ka soo qaad ma lahan dhig karnaa gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meer Makraan ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid muhiim u ah dadka ku nool magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe barnaamijka wasaaradda ay keentana waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan in laga wada tashto sida maaragtay wax loo qabo lahay baleen ama qorshihii mustaqbalka maaragtay ay yeelahayd magaaladan iyo magaalooyinka dhan iyo dhulbeereedka ugu badan gobolkan oo maaragtay aad iyo aad maaragtay waxa uu dhibaatada ka timaado Soomaalida sida badan waa dhulkana in xal loo helo ayaa aad u wanaagsan lagu maareeyo ugu mahad celinayna barnaamijkan saddexda maalmood socda ee wasaaradda maaragtay iyo tiimka la socda ay soo qabanqaabiyeen Yaasiin Axmed Maxamed wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee maamulka Hirshabeelle ayaa ugu dambeyntii kulankani ka hadlay sida idin muuqata boorka iyo walaalahan sida uu sheegeen barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay wadatashi dowladaha hoose iyo bulshada dowlad goboleedka Hirshabeelle muhiimadiisuna waa ka doodid iyo xog ururin inta badan sidaad ogtihiin Soomaalidu inta badan waxay isku dhacaan waa dhulalka iyo khilaafaadka ka dhasha land conflict marka si taasi maadaama Hirshabeelle dowlad goboleed ay u dhalatay waxaan u baahanahay marka xal u helid barnaamijkaasi in dowlad goboleedka Hirshabeelle uu helo marka waxaan rabnaa xal u helidaas arintaas ku saabsan oo ku timaado fikirkiina taladiina way aragnimada aad u leedihiin markay dhibaatadaas dhulka la isku qabsaday ee ka dhacaan sida aad ula tacaashaan Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar